بسم الله بسم الله بسم الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سود هذا ورمضان مبارك بري وحنا بلا ودور بشي بركتنا رمضان كإلهي خير كذا هنوافجيو. كل عام وأنتم بخير. سومالي تيك توك سود هذا ولا هي قارئة ما وحنا كهل دونا موضوعات آد ودر because وحواي gut health caloosha caafimaadka caloosha waa very important waa wax aad iyo aad muhiim u ah. nabiguna calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri almacdatu baytu daa, waa meesha cudurka iyo caafimaadka ay ka bilaabaan ama ku dhamaadaan waa caloosha. calooshaada walaalka iyo walaasha qaaliga ahay u gargaar, rabitaankeedana ka jawaab. waxyaalaha badan ayaa yimaada marka caloosha ay ku weydiisanayso inaad caawiso. calooshaada markay gargaarka kaaga baahan tahay goormee waxay u baahan tahay markaad yacni gaas qabto oo dibiro kugu dhacdo, heartburn wax la yiraahdo, ama ay wadnuhu xoogaa ku xanuunaan, caloosha ay ku dhegto ama shuban kugu dhaco. intaas waa calaamadaha ay calooshaadu ku weydiisanayso inaad caawiso oo caawinaad sida ugu degsiyaha badan awaasha. annaga natural ayaan wax u daweynaa, marka sida waxyaalaha naturalka ah sida loogu daweeyo iyo habka idin caawin karna waa idin soo sheegi doonaa. maxaa ka mid ah marka waxyaalaha caloosha dhibaateeya? waxaa ka mid ah inay dhibaato inay calooshaada qabto. waxaa kaloo kuu sheegayo cuntadii aad waxa ku noqonay allergy, waxaas allergigan ku ah waa dhaafay, wax kale haddana cunay waa ku siiro. wax kasta oo cunto sensitive food sensitivity saa helay yacni ama calooshi inay cuntadii ay yacni la dagaalayso. sidoo kale waxay keentaa skin problems ama skin irritations, in korku ku cuncuno ama kor cuncun ah dareemto adoo baahi badan ay ku qabato, ama food craving sokorto kale aad ugu baahane hadhowna waxay ku keeni kartaa in sokor kugu dhacdo ama dhibaatooyin kale fara badan ay kaa qabsadaan. waxaa dhici karta markaas xanaaq badan, dagaal badan, ama marmar qaarkood inaa mood iska noqoto, iska oyso, inaa maahsanaato, xusuustana ay kaa tagto. intaasoo dhan problemka caloosha ayaa keena. marka faa'iido badan ayay kuu leedahay inaad ka fikirto calooshaada caafimaadkaada guud. waxaa base u ah walaalka iyo walaasha qaaliga in calooshaadu ay raysato. mar haddii ay kuu raysato oo calooshii aad la tacaasho ama aad ogaato ood la socoto caafimaadkeeda, hormonal imbalansiga kaa yaraana, marka waxaa kuu toosayo gabdhaha xataa oo conceptionka raadinayo ama uurku kasoo daahay. waxaa muhiim ah inay calooshooda aad iyo aad ula socdaan ay ka shaqeeyaan, because hormonal imbalansigana waa qayb ay calooshu keento. immuunkaaga hoos u dhaca waxaa keenaya caloosha. inflammation haddaa ka qaylinayso sidoo kale caloosha ayaa shaqo aad ka fikiraysaa. kow, maskaxda, dadka cudurrada maskaxdu ay galeen ay dhibaateeyeen, waxaa iyagana aad u muhiim ah inay calooshooda kow ka war hayaan, kadibna wixii kaleeto oo yacni laga caawin karo aan ka caawino. marka haddii lagaa daaweeyo caloosha oo ama aad daaweyso calooshaada, su-aasha ay ku weydiiso ah caawina aad ka jawaabto, waxaa kuu fududaanaya inaa calooshi ay nabad gasho oo degto oo bloating ama dibiradi kaa ba'do, saxaradaada ay normal noqoto, shubanna aysan noqon, mid kugu dhegana aysan noqon, food craving kaa ba'ayo, clear skin hele yani more energy waa hele. intaas kadib maxaa sababa marka in calooshu ay dhibaatooto? waxaa sababi karo waxyaalo badan. waxaa ka mid ah gooryaan inuu kugu jiro, waxaa ka mid ah low stomach acid wax la yiraahdo, waxaa ka mid ah inaad haysato gut motility issues wax la yiraahdo, H. pylori overgrowth. anaga taas aadayba noogu badan tahay. digestive enzymeskaagoo iyagana aad u yar way keeni karaan caloosha, adoona bacteria qabin iyadana waa keeni kartaa. disrupted gut microbiome waa keeni yani caloosha haddii ay waxyaalo kale ka qaldan yihiin. small intestine bacterial overgrowth oo SIBO la dhaho
iyadana waxaa waaye mindhiciraha yaryar bacteria gasho oo aad iyo aad dadka u naafayso u dhibaatayso weight gainkana keento ama fungus oo kugu jiro oo calooshaada mindhiciraha yaryar sibo wax la yiraahdo waa jirta sifo wax la yiraahdo waa jirta small intestine and fungus infection overgrowth oo ay jiro fungi ama oo jiro maxay ahayd bacteria labadaasba dhibaato geysata marka leaky gut wax la yiraahdo waa jiraan colonka problemyada galo oo ayagana waa jiraan dad yahow waxaan idinkula kugu soo dhaweynaynaa Wellbeing First Hub oo arrimo badan inta idinka jaagareyso idin sharxi doonta qiimo aad iyo aad u raqiis ah magaalada waxaa lagu gadaa waxaa lagu sameeyaa mashiinada aan saarno 100 baan ilaa 150 baan anaga laakiin waa idin soo raqiisinay waa 40 pound soo dhawaada walaalaha qaaliga Wellbeing First Hub oo idinka caawin doonta wax kasta oo caafimaadka ku saabsan holistic medicine soo dhawaada